السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصاحبكين قدر قيس مانتيو موقال كلو عصوب waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dib iskugu soo laabanay maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sida YouTube-ka ugu samaysan lahayd thumbnail-ka muxuu faa'iido u leeyahay YouTube-ka haddii aad tahay YouTuber ma u baahan tahay thumbnail waad u baahan tahay mar haddii aad tahay YouTuber waxaad u baahan tahay inaad samaysatid thumbnail-ka wuxuu kaa caawin karaa inaad heshid views aad u badan ama in aad heshid asxaab aad u soo jiidato waayo thumbnail-ka wuxuu faa'iido badan u leeyahay qofka in uu YouTube-ka soo galo asagoo iska socdo haddii uu arko thumbnail-kaaga aad u quruxda badan laga yaabaa inuu dhufto sidaasna uu daawado muuqaalkaaga haddii aad ku cusub tahay channel-ka inagu soo biir oo subscribe saar like-tana ha iloobin aad baad u mahadsan tahay marka horeyso inta aan u gudgelin samayska thumbnail-ka aan idin faahfaahiyo iyo wuxuu uu yahay aan aragno thumbnail-ka marka horeyso waxaan soo furinaynaa YouTube-ka si aan u fiirino thumbnail-ka wuxuu marka halkan timaado YouTube-kaaga sida hadda kuu muuqato codka wada hadalka Sharmaboy iyo Daahir Cali Sow camal sawirka hadda kuu muuqdo ee saaran markii aan ku dhufto sawirkan wuu degayaa sabab waa thumbnail muhiimadda marka aan kuu sheegayo thumbnail-ka muhiimadda koowaad ee thumbnail-ka ama aan ku dhahayo qofka asagoo iska socda ayaad soo jiidan kartaa kadibna oo daawan kara muuqaalkaaga ayaa waxay tahay thumbnail-kan markii aan ku dhufto wuu isbedelayaa sida tan hadda kuu muuqato go'aanta qaata baxaya laakiin waxa weeye sidoo ahaa ayuu iska bedelay haddii aan ku tuso isla thumbnail kaleeto tusaale sida hadda waxaan ku tusiyaa leel baleel thumbnail-ka sidaas ayuu marka isku bedelayaa marka si aan u soo samaysano thumbnail waxaan aadaynaa Play Store-ka markii aan sida tan waadno halka searching-ka ayaa waxaan ku qornaynaa Pixel Lab ayaan ku qornaynaa marka aad ku qortid halkan ay ku keenaysaa update ayaad dhehaysaa update markii aad dhahatid caadi wuxuu ku soo qorayaa open aniga hadda ma suugi karo inta update ay iga noqonayso gudaha ayay igu jirtaa adigana update soo dhahan aniga hadda gudaha ayaan ka raadsanayaa Pixel Lab gudahan ayaan ka raadsanayaa Pixel Lab waatan waa binaanka ay aniga ii taalaa waayo mar hore ayaa igu dambeysay inaan update dhaho marka hadda waxa ii yaalay meeshan waxa ku qoran cancel-ka iyo kayda waxa weeye thumbnail horey aad u samaysay oo qabiil ka ahaa ma sii dhameystirnaysaa mise waad iska dhaafaysaa ayuu ku leeyahay marka cancel ayaan dhahaynaa uma baahnin new taxigan marka waan iska delete garinaynaa halkan delete qalinka agtiisa ayaan taawanaynaa delete ayaan iska dhahaynaa delete markaan dhahno halkan saddexda dhibac ayaan taawanaynaa oo ay ku qoran tahay use image from gallery full screen use image from camera export image size contact as report waxaa taabanaysaa oo keliya image size markaa taawatid halkan ay ku qoran tahay custom ayaa taabanaysaa custom markaa taawatid meeshan ay ku qoran tahay YouTube thumbnail ayaad ku dhufanaysaa markaad YouTube thumbnail ku dhufatid oo ay tahay 1280 iyo 720 okay ayaad dhehaysaa okay marka aad dhahdid labada koobi camal iskor saaran ayaa taabanaysaa waxaad ku dhufanaysaa from gallery markii aad ku dhufatid waxaad aadaysaa gallery-gaaga markii aad aadid waxaad soo qaadanaysaa thumbnail-kii aad rabtay inaad samaysay aniga hadda waxaan soo qaadanayaa Sheekh Hussein Ali Djibouti tigdan ayaa siinaysaa tig markaad siisid halkan ayuu ku keenayaa marka waxaad ka hadlaysaa sida Sheekh Hussein Ali Djibouti camal arrimo ku saabsan ayaad kaga hadli rabtay marka waxaad soo qaadanaysaa sawir kaleeto oo aad rabtid inaad sii qurxisid halkan ayaa taabanaysaa isla meeshan adigoo joogo meesha ay ku qoran tahay import meeshan ayaad taabanaysaa import markaad taabatid sawirkii aad rabtid in aad ku sii qurxisid ayaad soo qaadanaysaa okay aniga hadda hal sawir ayaan iska soo qaadanayaa sawirka aan iska soo qaadanaya ayaa wuxuu yahay sawirkan ayaan soo qaadanayaa marka aan halkan keeno hadda waad ujeedaa caadi buu u qarqarinayaa laakiin waxaan ku samayn doonaa in aan sawirkan background-iga haddadan ee jaallaha aan ka saaro ee aan tago meeshan ay ku qoran tahay eraser marka aan ku dhufto
baashan waad dheeraysanaysaa tanna waad weynaysanaysaa haddii aad rabtid kadib waxaad bilaabaysaa inaad shaqadaada wadatid. marka aad sidatan u dhamaysid marka halkan tigta ayaa taabanaysaa sawirkana bowsiis ayaa igu yiri jiray marka ma aqaan inuu saxmay marka waan fiirinaynaa marka aniga hadda bowsiis ayaa igu jiray laakiin adiga waxaan rajaynayaa inaad si khatar ah u samaysan doontid hab walbo aad u fahantid ama haddii aad tixraacdid hababka hadda aan u marayay aad baad u fahmi doontaa. marka tig ayaan hadda siinaynaa marka aad sidatan tig u siino hadda kis yar oo go'nin ayaa ku jiro laakiin dhib ma laha maadaama kan tusaale uu yahay adiga laakiin waxaan rajaynayaa inaad samaysatid amneel aad u qurux badan. marka sidatan aad samaysid adigoo hataa sawirka kaleeto kusoo dhibooday ayaa isla sawirkan markii aad timaadid aad sidan u hagaajisid sawirka la hagaajin kaagama baahno halkan koobi ayaad dhihi kartaa marka wuxuu kuu noqonayaa laba sawir aan ku celino koobi waa kan laba sawir ayaad kaga dhigan kartaa haddii aad u baahan tahay hal sawir oo keliya kan ayuu kuu noqonayaa. marka aad sidatan u samaysid haddii aad rabtid sawir kaleeta ayaad soo qaadan kartaa adigoona ku samaynayo sida aan hadda wadada u soo maray. marka haddii aad u baahan tahay inaad qoraal ku qortid oo aad rabtid inaad kaga hadishid marka horeyso haddii aad rabtid sawirkan background-iga ayaad kaga bedelan kartaa adigoo joogo halkan ayaad background-iga si walba aad ugu bedelan kartaa. marka hadda waxaan aadaynaa hadda waa ujeedaa sawirka xitaa saan waad kaga dhigan kartaa laakiin faa'iido ma laha taas. marka waxaan hadda iska aadaynaa aan ku fiirinaynaa si background-iga aan ugu dhigano nooc aan wax aan madmadow aan kugu jirin. haddii aad rabtid sawirka background-iga gadaal waa iskaga saari kartaa haddii wax qolqoloc ku galo ama aad ka bixin wayso camal sidatan hadda lama fahmi karo. marka haddii aad u baahan tahay in aad qoraal kusoo qoratid qoraalka aad rabtid inaad kaga hadashid fiidiyowga ama thumbnail-ka aad muhiimadda aad usoo saaratay meesha aad kaga baahan tahay inaad kaga hadashid ayaa waxaa samayn kartaa qoraalka halka balaaskaas aad taaban kartid text aad ku qoranaysid qoraalka aad soo qaadanaysid marka haddii mar sidan camal uu kuu dhadhibayo sawirka ama mar uu dhanka inta aadaya aadan ka shaqaysan karin ama aad waxba ka qoran karin sawirka adigoo halkan jooga ayaa calaamadan tigta ah ayaa taabanaysaa kadib sawirka quful ayaad iskaga xiraysaa qoraalka kadib sawirka quful ayaad iskaga xirinaysaa sawirka hadda kaama dhaqdhaqaaqay si walba aad saan u dhahayd kaama dhaqaaqay sawirka caadi buu u taagan yahay kadib qoraalka ayaad soo qaadanaysaa qoraalka markii aad soo qaadatid wixii ku saabsanaa muuqaalka ayaad ku qoranaysaa. hadda waxaan ku qoranayaa tusaale hagaajin markaad sidaas dhahdid okay ayaad dhehaysaa markuu okay ku keeno adigoo bahalkiisaan u haysto ayaad taabanaysaa kadib okay markaad dhahdid waxaa imaan doontaa halkan eeda ay ku qoran tahay meeshaan double T-da ah ay ku qoran tahay size waa qoraalka suu u weynaan lahaa ama u yaraan lahaa. hadda qoraalka intaas nooga dhig kadib background-iga markaan usii yeelno ayaan fiirin doonaa sawirka suu yahay. marka waxaan haddan tegaynaa color madow ama nooc uu ku fiican yahay ayaan ku fiirinaynaa bal madow inooga dhig madowga markaad inooga dhigtid meesha ay ku qoran tahay font ayaad taabanaysaa kadib fontiga aad jeceshahay ayaad kaga dhigan kartaa. aniga hadda marka waxaan iska saarayaa halkan ay ku qoran tahay days aan iska saarayaa dayska marka aan sidaan u saaro kadib style-ka haddaad rabtid xariiqad oo gadaal ayaad ugu darsan kartaa ama qoraalka ayaad wax kaga sii dhigan kartaa. marka halkan background-igana waxaa waaya in background aad u yeelatid bahalka ama sida tan hadda background-iga oo sida tan camal aad ugu yeelatid background-iga sida tan halkan ayaad iskaga dhiganaysaa. meeshan kaleetana ay ku qoran tahay stroke-ana marka waa sii qurxintii bahalka asaga madowga ama kalarka uu kusii badinaya camal. marka thumbnail aad u qurux badan ayaad samaysan kartaa adigoo kaga hadlaya thumbnail-ka wax walba u baahan tahay haddii xitaa marka qoraalka aad sidan u qoratay haddana usii baahan tahay in aad sawir kala hagaajisid halkan import ayaad ku dhufanaysaa isla sawir kaleeta ayaad soo qaadanaysaa oo aad rabtid inaad kaga hadishid muuqaalka wuxuu ka saabsan yahay ama aad rabtid inaad muuqaalka uga hadishid ayaad soo qaadan kartaa
adigoo xitaa nooc walba ama background walba ama sawir walba aad u baahan tahay aad soo qaadan kartid cidna aysan kugu dhibeynin. hadda kan camal haddii aan soo qaato aan iska soo koobi gareysto half yar marka aad sida tan usoo qaadato kuma sheegayo wadada hadaabeyti aan maray ayaad tegaysaa eraser ayaad ku dhufanaysaa kadib shaqadii hadaabeyti aan marnay oo keliya ayaad maraysaa marka mar labaad aan ku celino shaqada. hawsha marka sida aad tan u dhamaysid ilaa hadaweyta aan ku sheegay aniga hadda bowsiis ayaa igu jiro xataa si fiican uma sixin gacanta hoosteeda xitaa wax baa ku jiro. marka thumbnailkan aniga hadda tusaale un baan u thumbnailka si qurux badan ayaad u samaysan kartaa adigoo maraya waddo walbo ayaad samaysan kartaa. marka hadda tig ayaan siinaynaa markaan tig aan siino waa ujeedaa haddadan bahalkii wuxuu noqday wax aan kaga hadlayo camal Sheekh Xuseen Cali wax ku saabsan ayuu noqday. haddii aad rabtid meeshaan fallaarta ayaad soo qaadan kartaa adigoo fallaarta kaga dhigaya dhanka ama mawduuca aad rabtid inaad ka daashid ama microphone-ka ayaad isku aadin kartaa sida tan haddadan kuu muuqato wax yar af ayaad u yeeli kartaa kadib color-kana halkan ayaad kaga bedelan kartaa. marka thumbnailka marka wuxuu noqonayaa hadhowti marka qofku uu iska wareeganayo YouTube-ka ama iskaga dhex jiro asagoo u soo galin kaali wax daawo ama wax fiirso ayuu marka muuqaalka ay arki karaa thumbnailkana aad u soo jiidan karaa. ama thumbnailkaaga aad dhamaysay oo aad u baahan tahay inaad save dhahatid marka meeshaan ay ku qoran tahay save ayaan taabanaynaa. save markaan taabano waxaa imaadaysa save as project iyo save as image. waxaan ku dhufanaynaa save as image. markaad ku dhufatid save to gallery ayaad kusii dhufanaysaa. marka save to gallery aad ku dhufatid hadda gallery ayuu noo galay waan iskaga bixinaa. marka waxaan soo fiirinaynaa halka uu inoo galay ayaan fiirin doonaa. waa kan haddadan sawirkii ama thumbnailkii aan soo sameynay. marka sidee loo saataa thumbnail sidaan u saaran karaa YouTube-kayga marka aniga ku sheegayo sida aad YouTube-kaaga thumbnailka aad u saaran lahayd. marka horeyso haddii ay kugu jirto YouTube Studio waad saaran kartaa. haddii aysan kugu jirin Play Store-ka gal YouTube Studio u dhufo open install soo dhah kadibna Gmail-kaaga ku xiriirso kadib waad saaran kartaa. marka hadda aan ku dhufano YouTube Studio. markaas YouTube Studio sida tan ugu dhufano halkan furitaanka ah ayaa waxaan ku dhufanaynaa muuqaalka aan rabno inaan saarno. hadda muuqaalkan ma saarayo laakiin tusaale ayaan kaaga tusiyaa. halkan qalinka ah ayaa taabanaysaa. qalinka marka aad taabatid wuxuu ku keenayaa halkan. marka isla qalinkaas kale geeska ayaa taabanaysaa. hadda waad ujeedaa wuxuu leeyahay soo dooro ayuu leeyahay. marka aad sida tan usoo dooratid waa kan meeshaan select ayaad ku dhahaysaa. aan hadda select daan dhaha thumbnailkii hore ayaa iga tirtirmayo. marka select ayaad dhahaysaa thumbnailka caadi ayuu u saarmayaa. marka aniga haddadan muuqaalka aan hadda ka hadli rabay iyo thumbnailkan isma lahan. kan hadda ii saaran discard ayaan dhahanayaa. hadda waxa ii saaran waa hack Facebook password. marka u saaratid sida tan ayaad u saaran kartaa. si kaleeto aad u saaran kartid haddii aad taqaanidna waad u saaran kartaa waayo dadka isku cilmi ma ahan. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar haddii aad ka helin dislike. waxaan dib iskugu soo laaban doonaa muuqaalka xiga insha Allah.